وعدت قوانا بعزم الأبات يا من تسامى وخلى المنام جرى العمر يمضي ورا صراما أعلام الرجال صناع الحياة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، أيها الإخوة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقت كوبان وأن ديرين إن شاء الله تعالى يعني حكتها بندونا موضوع إصلاح القلوب. kadibna waqtiga badankiisa waxaa loogu talagalay su-aalaha. quluubta waa xubinka ugu muhiimsan xubnaha bini aadamka. waxaa la yidhahdaa waa xarunta jidhka. nabiguna sal alla alayh wasalam wuxuu ku tilmaamay hadduu hagaago in jidhka intiisa kale hagaagayo, hadduu kharimo oo hallaabana in jidhka intiisa kale kharimayo oo fasaadayo. wuxuu nabigu yihi sal alla alayh wasalam: alaa wa ina fi ljasadi mudqa idaa salaxat aw saluxat saluxa aljasadu kullu waidaa fasadat fasada aljasadu kulluhu alaa wahiya alqalbu. buu nabigu sal lla alay slam. jidhka bini aadamka waxaa ku dhex jira cad yar oo hal mar la calalin karo, afgelis ah. cadka yarka ah haddii uu hagaago jidhku waa hagaagaya, hadduu hallaabana jidhku waa hallaabaya, hadduu fasaado jidhku waa la fasaadaya. waa qalbiga buu nabigu yihi salawaatu rabbi wasalaamu caleyh. waxay culimmadu ku cabiraan inuu yahay sidii boqor oo kale, xubnuhuna ciidamay u yihiin: indhaha, dhagaha, gacmaha, lugaha, isagay u adeegaan. boqorka iyo madaxu hadduu hagaago, askartu waa hagaagtaa, raciyaddu waa hagaagtaa. haddii laakiin boqorkii khariban yahay, dowladdiisa qaybaheeda kalena waa kharibeynta. qalbiga waa meesha allah tabaaraka wa tacaala uu addoommada ka fiiriyo iyo wixii uu dhalo qalbigu. nabigeena wuxuu uhi sal alla alayh wasalam: ilaahay ma fiiriyo sawiradiinna iyo jidhkiinnu intuu leegyahay, walaakin yandur ilaa quluubikum wa acmaalikum. ilaahay wuxuu fiiriyaa qalbiyadiinna waxa ku jira iyo qalbiga waxa uu dhalay oo camalka ah ee xubnuhu sameeyeen. taasuu ilaahay fiiriyaa, laakiin jidhkaaga intuu la egyahay iyo sawirkaagu suu eegyahay midna wax ka soo qaad male. marka waa meesha ilaahay addoommada uu ka fiirinayo. waa meesha fitanka loo bandhigo. addoonka marka la fitnaynayo, fitanka meesha ay ku soo dhacaan oo loo bandhigo waa qalbiga. xadiidkii xudayfa tilmaamaya: tucradu alfitanu cala alquluub kalxasiiri cuudan cuuda. fitanka waa kuwa fitanka shubahaadka iyo shahawaadka, ama diinta oo kugu qalloocata oo si khalada aada u fahanto, ama ma aheen nafta oo shahwadeeda iyo doonideeda aada iska raacdo. waa labada cudur ee quluubta gasha: diin qalloocatay oo si khalada loo fahmo, iyo nafta oo kaa raacda shahwadeeda ood balwadeeda raacdo. cudurrada fitnadooda waxaa loo bandhigaa qalbiga iyagoo isdaba jooga fitankaasi. markaasay quluubtu qaybsamaysa. qalbi wuu cabbayaa
sida isbuunyada oo kale ay biyaha u cabto buu qalbi fitnadii cabaya markaasuu madoobaanaya khayr laaw ku soo baxaya qalbina fitnadii marka loo bandhigo waa diidaya waa tufaya waa ka xajiimoonaya markaasuu wuxuu noqonayaa qalbi dhalaalaya oo adag iftiimaya sidaasuu nabigu salawaatu rabbi wasalaamu calayhi inoogu muujiyey qalbiga ahmiyadiisa haddaba qalbigu oo xubinka sidaa muhimka u ah wuxuu u baahan yahay ka shaqayn iyo islaaxin buu u baahan yahay sida jidhka intiisa kaleba uu shaqo iyo hagaajin iyo daahirin ugu baahan yahay jidhkaagu dhaqitaan buu u baahan yahay qabays baad u baahan tahay afkii caday buu u baahan yahay xubnihii daahirin bay u baahan yihiin maradii inaad dhaqdaad u baahan tahay inaad isnadiifisaad u baahan tahay qalbigana sidoo kale ka warhayn iyo islaaxin buu u baahan yahay haddii aadan qalbigaaga islaaxininood halmaanto oodan daaweynin wuu jiran saas daraaddeed baa quluubtu waa mid baktiyey oo meyda iyo mid jiran iyo mid fayow waay jirada haddana intaasoo nooc u kala baxaysa jirada quluubta ku dhacda baa noocyo badan ah taas hadda tafaasiisheeda ma geli karno laakiin quluubta maxaa lagu islaaxiyaa quluubta waxaa lagu islaaxiyaa kow ah horta iimaanka liannahu maaddatu xayaati alquluub quluubta noloshoodaba waa iimaanka qalbiga mar hadduusan iimaan saxa gelin iyo tawxiid saxsan waa qalbi meyd ah waa bakti waa qodob asaasiya waa qodobka labaad quluubta waxaa lagu islaaxiyaa oo lagu hagaajiyaa oo lagu nadiifiyaa oo lagaga shaqeeyaa waa cilmiga sharciga ah qur-aanka barashadiisa tafsiirkiisood barato axaadiista nebigood barato tawxiidkood barato allaha ood barato barashada diintu waa waxyaalaha qalbiga nadiifiyay ka mid oo quluubta dhaqa waxyaalaha quluubta islaaxiya waxaa ka mid ah akhrinta qur-aanka kariimka ood u akhrido adigoo macnihiisa dhuuxaya alaa bidikri illaahi tatma'inu alquluub qalbigu wuxuu ku xasilo waa ilaahay dikrigiisa dikriga qur-aanka u horeeya qalbigu wuxuu ku dego oo ku xasilo oo ku raaxaysto oo ku nasto waa ilaahay dikrigiisa marka qur-aanka markaad macnihiisa dhuuxdo oo si degan u akhrido qalbigaagu waa noolaanayaa waa caafimaadayaa waa nuurayaa waa dhalaalayaa waa hagaagayaa qur-aanku waa daawo yaa ayuha annaasu qad jaa'atkum mawcidatu min rabbikum wa shifaaءun lima fi الsuduur waana xagga alla idinka timid ya waxaa kaloo idin timid daawadii laabta qalbiga laabta waxaa laga wadaa laabta wixii ku jira bimacnaa wixii qalbiga ku jira cudurro ahaa daawadiisiina xagga alla idinka timid waa qur-aanka kariimka ah xagga allay ka timid waana daawo wanunazilu min alqur'aani maa huwa shifaaءun waraxmat lilmu'miniin qur-aanku jidhkana waa lagu daaweeyaa cudurrada ku dhaca laakiin meesha sida khaaskaa uu u daaweeyo waa qalbiga cudurro fara badan oo wax ka daaweyn kara uusan jirin buu ka saaraa waxaa qalbiga daaweeya sidoo kale oo lagu islaaxiyaa altafakur fi aayaati illaahi alkowniya qalbiga inuu ku foofo ilaahay aayaadkiisan waaweyn ee dhinacyahaaga ka muuqda qur-aankuna in badan buu inoo diraa hawshaa iyada ah qul innamaa acidukum biwaaxida an taquumuu lilaahi mathnaa wafuraada uma tatafakkaruu waxaad ku tidhaahdaa hal arrin un baan idinku waaninaya maxay tahay arrintaasi mid mid iyo laba laba intaad isu taagtaan fikira ya waxaad ka fikirtaa allah tabaaraka wa tacaala aayaadkiisa kowniga bal samadan kaa koraysay say u dhisantahay tiir haya ma muuqdo wax tiira ma hayo haddana saasay u taalla ma soo dhacayso bal qaradeeda iyo intay leegtahay fiiri
bal dhulkan siduu u fidsan yahay fiiri bal buurahan la taagtaagay fiiri bal badahan fiiri iyo biyahooda iyo makhluuqaadka ku nool ya bal geedahan fiiri bal noolahan arlada ka badan ee wada kala duwan fiiri bal naftaadu say u abuuran tahay fiiri adiga lafaaga sida jirkaagu isu saarayeen iyo naftan kugu jirtiyo sidan cajiibkeed u dhisan tahay bal fiiri wa fi anfusikum afala tubsiruun markaad aayaadka ilaahay si dhab ah u dhuuxdo qalbigaaga wax badan baa iska bedelay ya waa cibaadatu waxa la yiraahdaa waa cibaadatu al-aqli baa la dhahaa xubin walba cibaado leey aqliga cibaadadiisu waa tafakkur inuu fikiro quraanka taqriiban maadadaas kun meelood ka badan ayuu ku keenay aayaadka kowniga ah waxa la mid ah aayaadka tanziiliga quraanka kariimka ayagana inaad macnahooda dhuuxdo ayadana qalbigaaga waa islaaxinaya waxa kamida ilaahi daacadiis salaada tukanayso qalbiga nadiifinaysa sadaqada baxsanayso qalbiga nadiifinaysa xajki umradii dacwadii khayrka aad sameynayso dhikriga aad ku dhawaaqaysa carabkaaga subhanallah alhamdulillah la ilaha illa allah allahu akbar la hawla wala quwwata illa billah dhikriga aad carabka ka akhrinayso qalbigaagu nadiifinaya shay ka ugu dahaaro badan waa ku daahirinay waxa nafta nadiifiya oo sidoo kale lagu dhaqaa tawbada goordaad khaldanto dambi ka dhaco dambigu qalbigu daxalaynaya qalbigu daxal iyo wasakh saaraya waxa dhaqayana waa tawbada dadka nabi wakiya sallallahu alayhi wasallam adoonku markuu gafo qalbigiisa dhibic madow baa la saara hadduu ka toobad keeno dhibicdii madoobeyd baa laga soofeeyaa waa laga tiraa waa laga nadiifiyaa hadduu dambigii ku noqdo ka soo noqon waayo ku si adkaystana dhibic kaleeta iyo dhibca kaleeta ilaa qalbiga dhibic madow iyo daxali wada fuush oo marka hadduu saa u wada mugdiyoobo khalaas waa u dhamaatay marka maxaa nadiifiya waxa nadiifiya tawbada dambigaad gashay inaad ka qoomooto ka xanuunsato inaadan dibda ugu noqonin go'aansato ilaahay inuu ku dhaafo weydiisato ya xuquuq binaadan haduu inaad iska guddo dambiga inaad ka tagto si dhaba markaad u toobad keento qalbigaagu waa isbedelaya waa noolaanaya marka asbaab fara badan bay shariicadu inoo jidaysay oo quluubta lagu islaaxiyo ninkii qaato oo isku nadiifiyana ilaahayna la kaashado tabaaraka wa tacaala allah tabaaraka wa tacaala qalbigiisa waa u daahirinaya waxa kamida ducada nabigeena salawaatu rabbi wa salaamu alayhi ducadiisa uu ku ducaysan jiray waxa u badnayd allahumma ya muqallib alqulubi thabbit qalbi ala diinik allah qulubta rogrogow qalbigayga diintaada ku sug Aisha weydiiso waxay tiri rasuulilaahi ducada baad badisaaye taa baad ku ducaysatay oo badisaasay wuxuu jira nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam Aisha qulubta bini aadam Allah tabaaraka wa ta'ala laba farood oo farihiisa kamiday ku dhex jiraan sidoo doonu u rogrogaa waa ka baqaya marka qalbigaaga waxa laga yaabaa isagoo mu'min aha iimaan laha in iimaanka laga rogo gaalnimo lagu rogo in iimaanka laga gadiyo munaafiqnimo lagu gadiyo in khayrka iyo jacaylkiisa laga gadiyo xumaan iyo jacaylkiisa lagu gadiyo ilaahay baa qulubta rogroga sidaas daraadeed baan u badsanayaa Allah qalbigayga khayrka ku soo ilaahu taacada xageeda u leex waa nabi maxamed sallallahu alayhi wa sallam marka ducada inaadan halmaamin oo aad ilaahay barido tabaaraka wa tacaala inuu qalbigaaga khayrka jeclaysiyo ku sugo asbaabta qulubta lagu islaaxiyay kamid tahay way farabadan tahay marka maadaama waqtiga intiisa badan loogu talagalay barnaamijka su'aalaha waxaan doonayaa in ay idhaahdo salafku ridwaanullaahi calayhim waxay dhihi jireen inta aan qalbiga iyo ka shaqayntiisa ku dadaalay shay kale oo ku dadaalay ma jiro qalbigu
siduu nabigu ku sheegay sallallahu alayhi wasallam waa sida baalka shimbirta oo kale oo hawada ka laalaada dabaylo adagna ay ku dhacayaan kol xaggay u dhufanayaan kol xaggay u dhufanayaan mawjadahaas ku imaanaya qalbiga baa rogrogaya yaa fitankaasa rogrogaya sidaas daraadeed waxaad u baahan tahay in aad shaqo badan iyo soo jeed iyo dadaal u yeelato qalbigaaga sidoo ku islaaxi lahaa qalbigu inuu islaaxi xagee laga gartaa carabkaagaad ka garani oo indhahaagaad ka garan oo akhlaaqdaada ka garan oo lugahaaga iyo gacmahaada ka garan oo xubinkaaga tarankaad ka garan oo dhaqankaagii baad ka garanaysaa qalbigaagu inuu islaaxay qalbigaagu inuu khariban yahayna waxaad ku garan dhaqankaaga misaal haddaan idin siiyo maalan haddaad is aragto adoo u adkaysan laha khayrkiiba majaalista khayrkaa ma fadhiyi kartid qur-aan in badan intaad fadhido ma akhrin kartid masaajidka waxoo yar ma fadhin kartid salaadaas 10 daqiiqo la tukanayaa ku dhibaysa yaa wadaadku maanta qur-aanka inuu nagu dheereeyay horta kan yaa noo keenay wadaadka uu dad salaada ku dheereeyay muxuu ma adkaysan kartid baynama aad ma la yacniga iyo waxyaalaha xaaraanta aad u adkaysi badan tahay meelaha fadhi ku dirka saacadaad fadhi karta saacado adoo waxba lagu siinay shaahana iska bixinay intii la doonaad fadhi karta ku fiirso meelaha xaaraanta intii la doonaad joogi karta adoo macaansanay maxay ku tusi marka waxay ku tusi in qalbigaaga uu khariban waxani qalbigu ka socdaa عكس ذلك هذا دركتو أضو خيرك النقول خيركنا أصبره حمانتنا كعر قلبي جاو وكجو بنينا وحي علامة تهاي إن قلبي جاو هجاكسين صباح إنه هي قلبي جاو هجاكسين ساس درادة النبي صلى الله عليه وسلم وحكوت المامي صدق هذا الرمود إيمانك معانك يسلوه له وحكوت المامي يا إن هذه الله هي الرسول كيس واحد كسرك تعش ضدك أتشعلان يسني هذه الله درتي وتشعلات قال لي ماذا يا حمانتنا إن أض أنعضو سيدا أض أنعبت هاي يا إن ضبلو جوردو ضب إيه النار إن جوردو على ضوء النار سو واحد ما سيدا صوك لا إن أض حمانتي قال لي ماذا أنعضو أو أي أطيبسته كراهيسته تواحد كتوسي سامركها إن قلبي جاو نولي حاجة سين إصلاح سين marka ilaahay tabaaraka wa taala qulubta Allah inoo islaahay walla tabaaraka wa taala fitanka ku jira iyo imtixaanaadkii shubahaadkii shahawaadka Allah inooga saaro ilaahayna tabaaraka wa taala inooga xifdiyo wax kasta oo dhibaato leh wixii khayr iyo wanaag lana Allah tabaaraka wa taala ina waafajiyo assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh وعدت وانا بعزم الأبات يا من تسامى وخلى المنام جرى العمر يمضي ورا من صراما العمر يمضي ورا من صراما أعلام الرجال صناع الحياة